sida aan u fikirno, qaab nololeedkeenna iyo habdhaqankeennaba waxaa qaabeeya heerka uu la egyahay caqligeenna. Caqliguna wuxuu leeyahay 3 heer. qof kastoo inaga mid ahna wuxuu caqligiisu gaarsiisan yahay mid ka mid ah heerarkan soo socda. Caqliga hooseeya waa caqliga ugu liita, waxaana lagu gartaa dadka leh caqligan hooseeya kaliya waxay ka hadlaan oo ay ku mashquulaan dadka kale. Tusaale ahaan, iyagoo dhaha mar walba hebel iyo heblaayo ma ahan dad isku qalma. Wiilka ayaa ka qurux badan gabadha, ama gabadha ayaa ka qurux badan wiilka. Sidoo kale, dadka caqligaas leh meel ma gaaraan oo dhaqankooda iyo fikradahooda isma bedelaan oo ma sameeyaan koriin. Xitaa hadduu cimri u kordho, weli waxay ku sii mashquulaan dadka, waxayna dayacaan danahooda gaarka ah. Intaas waxaa u sii dheer, dadka leh caqliga hooseeya sifooyin aan wanaagsanayn sida xanta, isku dirka, xaasidnimada, khiyaanada, aargudashada iyo cuqdada. Sidaasi darteed, caqligan waa caqliga ugu liita ay leeyihiin qaar ka mid ah dadka dunidan ku nool. Taasna waxaa sabab u ah ku mashquulidda dadka kale. Caqliga dhexe. Dadka leh caqliga dhexe waa kuwa wax yar ka wanaagsan dadka leh caqliga hooseeya, balse iyaguna waxay ku mashquulaan sheeyada iyo dhacdooyinka dhaca, waxayna mar walba indhaha ku hayaan sheeyada cusub. Tusaale ahaan, waxay mar walba dhahaan oo ay ku mashquulaan waxyaabo kala duwan sida waxaa soo baxay gaari cusub, waxaa soo baxay dhar noocaas iyo noocaas ah, meel heblaayo waxaa laga dhisay guri qurux badan, xafladda waxaa lagu qabtay meel heblaayo, halkeed ka dhiganaysaa arooskaaga, iyo waxyaabo kaloo badan oo aan quseyn nafsadahooda. Dadka leh caqliga dhexe waxay aad ugu dheeraadaan ka sheekaynta waxyaabaha aan quseyn nafsadahooda, sida laacib hebel waxa uu sameeyey rikoor aan caadi ahayn, heblaayo waxay xafladeeda ku qabsatay meel qurux badan, koox hebel ma guulaysan doonto waayo hebel ayaa ka maqan, qabiil hebel hadda ka hor taariikh ayuu ka dhigay waddanka, iyo waxyaabo kale oo aan la soo koobi karin ayay ku bixiyaan si maalinla ah waqtigooda intiisa ugu badan. Waxaana intaasi u sii dheer, dadka leh caqliga dhexe inay yihiin dad faan badan oo noloshaba ku qiimeeya sida lacagta, labiska, guryaha, qabiilka, waddanka iyo waxyaabo kale. Balse si kastoo ay ahaadaan, dadka leh caqliga dhexe waa kuwa isbeddel ku samayn kara caqligooda iyo garashadooda haddii ay doonaan. Caqliga sarreeya. Dadka leh caqliga sarreeya waxay ka hadlaan mar walba horumar, horu socod, isbeddel, samaysashada caadooyin wanaagsan, dhisidda shakhsiyadda qofka, ka fogaanshaha waxyaabaha aan quseyn nafsadahooda, iyagoo mar walbo aad la sheekaysato aad ka dareemayso hadallo xigmadaysan, hami fog, iyo wax kastoo qiimo iyo sharaf u kordhiya nafta. Sababtoo ah waa dad aaminsan noloshu inaysan ahayn mid ciyaar ciyaar ah, balse ay ku dhisan tahay fikir iyo horumarin joogto ah. Dadka leh caqliga sarreeya waa kuwo mar walba ku jira halgan, fikir iyo dadaal wada socda, kuwaasoo ay ku horumarinayaan naftooda, qoyskooda iyo dadkoodaba. Waana kuwo wax ka barta qaladaadkooda. Hadallada ka soo baxa afkooda waxay jecel yihiin inay ka dhabeeyaan oo ay ka dhigaan hadal wax soo saar leh oo isku beddela ficil, taasoo ka dhigaysa dadka caqliga sarreeya inay yihiin kuwo ka duwan mar walba dadka kale xagga fikirka, isbeddelka iyo horu socodka. Haddaba, adiga ayaa leh doorashada 3dan heer uu caqligu leeyahay inaad kasbato.
haddii aad doonayso inaad yeelato sida dhammaanteen aan u wada jecelnahay inaan wada yeelanno caqliga sarreeya, waa inaan wax ka beddelnaa habdhaqankeenna iyo fikradaheenna, kadibna aan ku dadaalnaa in nafsadaheenna aan ka reebno ku mashquulidda dadka kale iyo waxyaabaha aan qusay nafteenna, kadibna aan ku mashquulino nafteenna sida ay u noqon lahayd mid ku mashquusha arrimaheeda gaarka ah, horumarinteeda iyo korriimadeeda, annagoo la imaanayna wax aqris badan, daawashada waxyaabaha muhiimka u ah nafta, la saaxiibidda ama la sheekaysiga dadka waaye aragga ah si aan uga kororsanno wax badan. Ugu dambayn, caqliga dadka waxaa saameeya hadba dadka ay la nool yihiin, sida qoyska, deriska iyo asxaabta, kuwaasoo ka geysta kaalin weyn korriimada caqliga. Haddii aad waqtigaaga intiisa ugu badan la qaadato dadka leh caqliga hooseeya ama caqliga dhexe, waxaa hubaal ah inaad u fikiri doonto una dhaqmi doonto sida ayagoo kale, balse u door naftaada kasbashada caqliga sarreeya, kaasoo kaa dhigaya inaad noqoto qof ka dhisan fikir ahaan iyo habdhaqanba, oo xusuusnow naftaada horumarinteeda cidna mas-uuliyad gaar ah kama saarna oo aan adiga ka ahayn. Inta aan goordhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socda, waxaan rajaynayaa inaad leedahay caqliga sarreeya. haa inaad leedahay caqliga sarreeya, sababtoo ah waxaad daawanaysaa muuqaalkan si aad wax badan uga ogaato nolosha, aadna u kororsato wax badan oo ka maqan naftaada. Hambalyo, aad ayaad ugu mahadsan tahay mar kale daawashada muuqaalkan. mahadsanid.